asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa mar kale iyo casharada aqoonkaal.com casharkani waa qeyb saddexaad ee sida wordpresska loogu sameeyo foomka shaqada ama foomka xiriirka haddaba soo diyaarso dashboardkii wordpresska kadibna waxaa gashaa contact qeybta contact form 7 casharkan marka hore waxaan soo samaynay foom caadi aan soo samaynay marka foomkii haddaan rabo inaan foom cusub samayno waxaan samayn karnaa inaan idhaahno inaan ku darno foom cusub oo meeshaan kaga darno add new form aan idhaahno hadda intaynaan kaa gaarin waxaan samaynaynaa foomkii hore aan samaynay ayaan masaxaynaa kadibna waxaan ku bedelaynaa foom cusub aan samaysanay marka foomkii horena baabii qoraalkan intana ka baabii meeshaana waxa weeyaan emailka inta labada qaanso dhexdooda baabii magacana baabii subjectna ka baabii emailkan waxaan nidhi waa inay ahaataa emailka websiteka mar walba taas waa shardi intaa markaa samaysid marka waxaan samaynaynaa foom kan la mid ah foomkanaan samaynana oo kaleeto soo ma jeedid marka waxaan qoraynaa foomka xiriirka oo ciwaankiisa ah iyo qoraalkan kadibna waxaan samaynaa foom caadi aan samaysanana ma fahanti marka waxaad tidhaahdaa ku laaba inta sidana mar hore usoo xusnay bilowga qoraalka usoo xusnay foomka caadiga waxaa lala samayn karaa iyadoo la adeegsanayo htmlka caadiga ah marka waxaad samaynaysaa baragraf ama waxaad samaynaysaa ciwaan h4 oo kaleeto waxaa leedahay foomka xiriirka waxaan isticmaalnaa htmlka caadiga ahaa marka ciwaanka qortid kadibna waxaad tidhahdaa baragraf cusub baragrafka qoraalkiisa ku qor kadibna dabar baragraf ku samee marka waxaan qornay fadlan soo bixi foomkan hoose caadi marka qoraalka horta ku qoranaysaa macnaa hadda qofka u sheegaysid waxa foomkan ku saabsan yahay tusaale ahaan baad u qoratay mogta kadibna waxaad tidhi baragraf cusub baa samaysay maxaa meeshan ku qornaa waxaa ku qornaa magacaaga oo shardi ah waana saasaa ku qoran mogta waxaa qortay magacaaga kadibna bil baa furtay waxaa qortay shardi waxaan ka dhiganaa inuu shardi yahay in magaca qofku qoro halkaa markaa joogto waxaa u samaynaysaa br oo macnaa waxa weeyaan magaca ba waxaan ku hoos qoraynaa qaybta wax lagu qoraayo halkaasaan fahmno waxaan samaynay magacii ba waxaan ku hoos qornay meesha wax lagu qoraayo calaamadda marka brta ayaa kala hoos marinaysa enter dheh magaca marka maxaa weeye waxaan nidhi waxaa ku daraysaa generate tag ama tag samee baan leenahay mogta magacu muxuu yahay waa text field saan hore usoo aragnay text field calaamadinaysaa shaashad baa ku furmaysa waxaan nidhi nameka waa u dayn kartaa haddaa rabtid ama waa ka bedeli kartaa macnaa meesha waxaan ku qoran waa ka bedeli kartaa haddaa rabtid waxaa ku qoran kartaa sidaasa u dayn kartaa marka sidaan u daadsanaynaa requirement shardi bacdama aan ka dhignay waxaan leedahay requirement calaamadii meeshan waa isbedeshay qoraalkan waa soo kobiyaarayso inta ku bees garee marka saa ma samaysay qoraalkana marka qaado isagana soo kobiyaaray waxaa ku kobiyaaraysaa marka meesha ay ku qoran tahay from marka waxaan leenahay qofku ka yimaa sheegaynaa moogtahay meesha dhambaalkaana waxaa ku qorataa ka timid ama ka yimi ama ka oo kaleeto ama from marka waxaa ku beesgaraysaa qoraalkan macnaa kan hoose weeye marka kan sare iyo kan hoose waxu kala duwan yihiin midka sare waxaa la socda text iyo calaamadii astriska ahayd oo requirementiga ahayd laakiin kan hoose lama socoto calaamadaasu soo ma jeedid waxaa kaloo samaynaysaa markaa iska xir maxaa marka inoo samaysnaa waxaa inoo samaysnaa magaca waxaa ku xiga emailkaaga qor marka hore waxaa xirtaa baragrafkii xir baragraf u samayso iyadana waxaa ka dhiganaa shardi br oo isku hoos qor labada ah ma fahanti generate tag email baa marka samaynaa mogta emailka marka hadaarto waxaa ka bedelaysaa meeshaan ama u daaso kadibna waxaa ka dhigtaa required oo shardi baan ka dhignay qoraalkan soo koobiyaaray ama waa jiidi kartaa saasa u jiidi kartaa hadaad xagaha ku qabatid ama waa koobiyaarin kartaa kadibna baragraf ku xir qaybtan hoose soo kobiyaaray kadibna meesha email ku qoran tahay labada qoys dhexdooda geli sidaan halka qor marka haddaa rabto inaad ogaato qofka emailka kaas kuu soo dirayo inaad emailkiisa aad ka dhex aragtid qoraalka lagu soo diray laba bil fur kadibna waxaad dhex gelisaa emailkii halkaa fahantaan faliya enter dheh
marka waa ka yimi magaca qofka iyo emailkiisii. waxaan kaloo ku qornaa waxaan ku qornaa ujeedo. inta ku qor ujeedo paragraph cusub samayso ujeedo paragraphka brt samee kadibna waxaad tirahdaa new tags waxa ahaa text field way moogtahay ujeedaduna shardi ma ka dhignaa maya shardi ha ka dhigin ina shardi kama ahayn meeshaan soo maa marka shardi ma ahayn kadibna qoraalkan caadi koobiyaaray meesha ku beesgaree kadibna paragraphka xir qaybtan ujeedada soo koobiyaaray waxaa la timaadaa subject halkaa ku beesgaree halkana waxaa ku qorataa marka ujeedo waa haddaa rabto in macnaha qoraalka lagu soo diray uu ka dhex muuqdo ujeedada ka dhex muuqato waxaan kala haysanay qor dhambaalka waa ku qoran halkaas ma jeeda paragraph cusub baan sameynaynaa waxaan leenahay qor dhambaalka br meeshaan riix mar kale generate tags marka dhambaalku maxaa weeye waa text area weeye marka qoraal ballaaran oo badan baa ku qoraysaa moogtahay saasaa marka text area loo yidhi text areadii u daasa daarto magaca ku qoran requirement daarto inaa ka dhigtana requirement aa leedahay copy ka samee halkan ku base garee kadibna paragraphka xir intana koobiyaaray kan meeshaan la imow waxaa ku qorataa dhambaal oo kaleeta iska qor marka dhambaalka halka soo baxaya waxaan kaloo haysanay captcha qaybta ahayd oo ahayd in shardi xarfo lagu qoro si computerka aan email spam lagaga soo dirin ku noqo marka hala ku noqo meesha enter dheh paragraph aan samaysanay waxaad tidhaahdaa generate tag captcha soo ma jeedid captcha riixday kadibna qaybtan waxaad ku koobiyaaranaysaa bartana ku koobiyaaranaysaa markastaa leedahay br qaybta kale oo labaadna waxaa ku koobiyaaranaysaa meesha ka hooseysa marka midna waxa weeyaan waa xarfaha ku muuqanaya meelna waa meesha lagu qorayo bay samaynaysaa ma fahamtid marka paragraphka xir waxaa noo ku dambeeya ugu xiga waxa weeye inaad tidhahdo soo dir meeshay ku qoran tahay batoonkii laga soo dirayey paragraph samayso waxaad tidhahdaa samid weeye magta isagu samid button ama batoonka soo diridda weeye labelka marka halka ku qor waxaa rabto inuu kor ka muuqdo halka ku qoraysaa soo dir oo kaleeto tiri moogta markaa koobiyaaray ku beesgaree meeshaan paragraphkina xir marka kabjagii inta kumeynaan daray soo ma jedid waxaan ku daraynaa keliya qaybta lasoo diraayo inuu emailkaa ka soo dhex boolaan rabo marka waxaad tirahdaa formkii safe dheh markaa safe tirahdid waxaa ku noqotaa waxaa soo koobiyaaraysaa marka halka soo koobiyaaray waa contact formka kadibna waxaad tagtaa bagekii ku bedel formkii hore contact formkii hore ku bedel kadibna waxaad tirahdaa update marka booqo website-kii kadibna contact waa kana marka formkaan sameynay wuxuu noo leeyahay magacii emailkii ujeedadii qoraalkii iyo kabjaga meesha xarfihii casharka xiga waxaan ku sameynaa marka inaan foomka aan ka bedelno midabka oo aan u sameyno midab noocana aan u sameyno ilaa hadda waxaan sameynay foom la mida kii laakiin midabkiisu ka duwan yahay soo ma jeedid casharada cusub ee aqoonkaal markasta waxaa kala socon kartaa websiteka aqoonkaal.com haddii aad rabto in casharku marka la daabaco uu kuu soo dhaco emailkaagana waxaad riixi kartaa barta ay ku qoran tahay rukumo ee webka aqoonkaal.com barta markaad riixdid waxaa ku soo baxaya meelaad emailkaaga ku qoraysid emailkaaga markaad qortid waxaa kuugu soo dhacaysa emailkaaga email xaqiijin ah haddii aadan xaqiijin markaa kuma soo dhacayaan emaillo cusub ama qoraal cusub kuma soo dhacayo laakiin marka waxaa shardi ah markaad rukumatid oo emailkaaga ku qortid bartaas waad tirahdid markaas xarfahana qortid waad tirahdid markaas dhammaystir ama waxa weeyaan waxaan ku soo biiray waan rukuntay aqoonkaal markaad tirahdid waxaa kuu soo dhacaysa emailka marka waa inaad ka jawaabtaa oo tiraahdaa oo aqbashaa macnaha si aan qof kale emailka u isticmaalin baa loogu talagalay marka in la hubiyo taxadar weeye wixii markaa ka dambeeya marka qoraal lagu daabaco aqoonkaal.com waxay ku soo dhacayaan emailkaaga iyagoo kuu sheegaya in qoraal cusub laga daabacay oo lagu daabacay websiteka halka ayaan ku tujinayna casharka maanta wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu wabilaahi towfiiq